shirkadda Dahabshiil Group ayaa guddida abaaraha waqooyi bari ku wareejisay deeq $50,000 oo loogu talagalay in lagaga qayb qaato abaaraha. Guddida abaaraha oo ku sugnayd xarunta Dahabshiil Group ee ku taala caasimadda dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya ayaa deeqdani waxaa ku wareejiyey Cabdiqani Awdaahir, guddoomiyaha shirkadda Dahabshiil Group, isagoona halkaasi ka sheegay deeqdani $50,000 ee shirkadda Dahabshiil Group ay ugu talagashay inay ku wareejiso. sidii awalba shirkadu ay taakulada abaaraha iyo wax kastoo culaysa yimaada ay uga qayb qaadan jirtay, waxaan rabnaa inaanu taakulo jeeg lacagtaas $50,000 oo shirkadu ay ugu deeqday abaaraha oo codsigii guddida ah baan doonaynaa inaan wareejino insha Allah. aad baan runtii ilaahay waxaan baryaynaa marka hore in ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga gacan weyn ilaahay roob ina siiyo, deeqdiisa ilaahay inuu inoogu roonaado. runtii waqti adag baa lagu jiraa. waxaan runtii anoo ka shirkad ahaan afkeeda ku hadlaya arrintan marka codsiga noo yimi waa runtii waanu ka showrnay ugu yaraan waxaanu silbal wax dhowr boqol oo booyadood taqriiban 500 oo booyadood wax ku dhow insha Allah bal ku talagala. marka insha Allah aad iyo aad baan guddidana waxaan leenahay hawsha aad haysaan ilaahay ha idinku garab galo, ilaahay ha idin fududeeyo. annaguna insha Allah diyaar baan u nahay inaanu garab istaagno guddida insha Allah. runtiina aad baan ugu mahadcelinaynaa Dahabshiil Group Xaaji Maxamed Saciid ugu horeeyo runtii oo codsigii ka soo jawaabay markiiba. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaa ilaahay mahadiisa subxaanahu wa tacaala maanta halkan inaan kaga guddoomayno shirkadda deeq ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan gurmadka abaaraha deegaanada waqooyi bari. deeqdaas oo runtii wax weyn ka tari doonta insha allahu tacaala baahiyaha jira iyo duruufta jira. marka hore ilaahay waynu u mahadnaqaynaa, mar labaadna waxaan u mahadcelinaynaa shirkadda Dahabshiil Group iyo guddoomiyaha shirkadda Xaaji Maxamed Saciid oo runtii shirkadda iyo guddoomiyaha xaajigaba lagu yaqaano inay had iyo goor ka qayb qaataan caawinta iyo kaalmaynta dadka duruufahu ay ku yimaadaan, hadday abaaro tahay iyo haddii ay musiibooyin kaleba ay tahay. ilaahay waxaan u weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala shirkadda iyo maaragtay xaajigaba ilaahay inuu xoolahooda u barakeeyo, meesha ka keenayna wax ka wanaagsan ilaahay ugu bedelo. aad ugu faraxsannahay runtii oo ay ku sii mahadsan yihiin shirkadihii aan u qoray ee deegaanka, shirkaddii ugu horeysay ee codsiyadii aan u gudbinay ka soo jawaabtay inay noqotay shirkadda Dahabshiil. taasna aad baan ugu mahadcelinaynaa, waanu ku faraxsannahay haddaan guddiga gurmadka abaaraha ee waqooyi bari. ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala marka horeysa inuu dhibaatadii naga qaado, raxmadiisa noo shubo. sallallahu alayhi wasallam. runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa shirkadda Dahabshiil Group iyo Xaaji Maxamed Saciid oo shirkadda guddoomiyaheeda ah. deeqdii koowaad ma aha, deeqo fara badan baa looga bartay shirkadda. waxaan xusuustaa biyadhaamis hore booyadood ay u bixiyey xaajo. marka insha allahu tacaala booyadood waxaan leeyahay waa shirkadda ugu degdega badan marka wax la rabo sadaqada dadka iyo dhibaatada markay timaado. waxaan ilaahay uga baryaynaa ilaahay inuu shirkadda barakeeyo, shaqaalaheeda barakeeyo, hantideeda barakeeyo, Allah subxaanahu wa tacaala u dhowro. gruubkeeda Soomaaliya oo dhan bay ka shaqeysaa iyo caalamka. si gaar ah aan ugu xisaabtanaa marka dhibaato jirto shirkadda iyo dhaamis abaaro wixii dhaca quraanka tartankiisa masaajidada haddii la dhisayo haddii dhibi jirto marka iyaguna jawaab degdeg ay ka bixiyaan. marka insha Allah ilaahay ha barakeeyo shirkadda.